dumarku waa masalada haweeneyda intaan ka hadlay haddana si khaldan u qaateen xali cabdiraxmaan ay weydiinayay waxaa weeye caruurta iyo dumarku iyo caamadu marka laga hadlayo colaad iyo nabad silmi iyo xarbi wuxuu ku xidhan yahay maamulka iyo dowladda iyo taliska sunnada nebi maxamed sidaasay ahayd reer taa'if iyo reer thaqiif markay nabigu colaad qaateen iyo muslimiintu yaa colaadda qaatoo go'aamiyey madaxyaweyntii caamaduna marka xagga colaadda iyo nabadda masale waxaynu ka hadlaynaa aljihaad fii sabiili illah qadiya caskariya laga hadlayaa ha ila soo ordi masalo takfiir dabaalnimadkaada laba masaloon isku baab ahayn haddaad keento caamada khawaarijta waxay sheegaan layma keeni karo caamo khawaarijo waxay garan jirin baad warkeeda ii keenaysaa oo waxay fahmayaan bajir ilaahay oo ayagu ru'uustooda u aafeeyey waa horaagtayda ahlulbidc bay ka ahaayeen haddana waa gaalo dhiiggooda wuu bannaan yahay hadda goor baa idiin sheegay maxaa yeelay laba masaloon layslahayn laysma saaro ruuxu marba hadduu islaan muujisan hayo meel walba adduunka uu joogo waa muslim wax daar ku xidhan ama dowlad ku xidhan ama madaxweyne ku xidhan ma jiro man qaala laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah wa adhara alislaama gaalnimana aanan ku ogayn bixaddi daatihi tal abiibba hadduu fadhiyo waa muslim adduunka meesha ugu khatarsan maxay ahayd tal abiib ma ahayn mise waa los angeles iyo san francisco wey meesha ugu gaalsan hadduu joogo oo islaamnimo muujisanaya waa maxay waa muslim wax dowlad ku xidhan ama maamul ku xidhan ama madaxweyne ku xidhan ama bulsho badnaanteed ku xidhan ma aha akaru ahlilbe hadday gaalnimo muujisan hayaan asaguna islaam muujisanaya muxuu yahay waa muslim waa masalatu ijmaacin waman khaalafa faqad kafar من يظهر الإسلام ولا تعلم به ناقضا من نواقض الإسلام الحكم له بالإسلام هو قطعي ومن نازع فقد كفر لذا مسألة الله مخل طبعا جربان سو شرحي إذن كان مركا ديغا يوكرنيا بقول فدي كبدان باوشا كغا هل maxaa isu keenaya mas'ala jihaad iyo siyaasa askariya khusaysa iyo mas'ala khusaysa al-iimaan wal kufr marka dabaalada wararkooda leeyma keeni karo ninkii ii soo qadan asaga dabaala waad fahanteen baro malaynay man ka daaya bas waay cabdiraxmaan oo ma jeedo isu guud baro hadlaaya hadda dal soo ma joogno hadduu tanzania colaad qaadanay midinka wax laydin weydiinaya barlamaanka meeshan jooga iyo wasiirro iyo madaxweyne waa la tashan go'aan baa la qaadan waxaad maqli waxaa dagaalamaya kenya iyo tanzania isku afuufahayo wax laydin weydiin ma jiro uganda iyo kenya waxay isku xumaayeen maxaa laydin weydiiyey soomaaliya iyo kenya isku xun maxaa laydin weydiiyey alxarbu wasilmu wuxuu ka go'aa madaxda yuu ka go'aa caamada iyo bulshaduna colaad iyo nabad waxay ku xukun tahay colaad iyo nabad kuma dhihin gaalnimo islaam kuma dhihin la soco hadda colaad iyo nabad waxay ku xukun tahay dowladda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo quraysh markay dagaalameen abu jahl iyo abu sufyaan iyo maqaawiir nabiga wada hadlaye macaamiha haweenba wax la weydiiyey qabaa'ilku hadda markay xisaabtamahayaan yaa hawsha u go'aamiya nabad iyo colaad malaaqyo iyo isme iyo nabadoonno iyo balbaad iyo balaayo waxay qaadatay yaa hawshaa ka taliya caamaduna meesha unbay ku rogmataa lagu laayaa ama lagu daayaa waxaynu ka hadlayno waa asilmu waalxarbu laakiin alislaamu waalkufru waa masaladay ku dhumeene idaa kafarat الraciya idaa kafara الraaci kafarat الraciya ninka yidhahda faqad kafar ninka yidhahda hadday dowladdu gaalowdo shacabkuna waa gaalo faqad kafara wakharaja min almilla alislaamiya wahuwa الراجح من حيث الدليل خوارجته وكفروا من الراجح من حيث الدليل وهو مذهب البخاري ومذهب البخاري ومذهب أبي أمامة الباهلي الصحابي الجليل ومذهب قاضي أبي بكر ابن العربي ومذهب السبكي ومذهب القرطبي وجماعة من الفقهاء وهو الذي أختاره وأدين الله به هذا أقول له يعني هلني كما تجنادين كوح جوني أنت أكونه بان دبقي لها نفر مدايين أجي نمك الشيعة اللي يجادبه الأمن القومي الديني بيخطركوه الأمن القومي
الديني الأمن القومي السياسي الوطني ضد خطر كوا وذا شركة دينيدنا لبا كوحود با ugu daran waa khawaarijiyo iyo shiico nimanka Soomaalida arag cashirkiina ka iga saaray war dabaalada isoo guuriseen nimanka shiicada la yiraahdo Soomaalida arag caaya Abu Bakar iyo Umar nabiga xalay uu soo lahaa fa in yutiu Abu Bakar wa Umar yarshudu qalaha 3 مرات يقول وقالوا ومنافقين وتوغو وكان عائشة أحب الناس إلى رسول الله بعاية لي وملعونة زانية بغي منافقة أهل النار كهيا هو النوع عاسى وحوي وإن لا ترتروي الشيعة خاصة قيسك الصومالية ونسكي إلالي صوفية المشركين إلهي غير كي عابد الشيعة النقدر لأنه هم مشركين شيعته نقصها يا خطر كلا تشبين أماليض واجد دم نسكول الله إنه سنة يشيعه سيد عربي وباباضي مشروع مجوسيا أو كفر أو إيران أي وضوه يي ربا إني صوماليا كنت طلالان وين أبطيت قل لي أقولون وحالك هذا أوشا هرب هذا هي توبي كان مربضا أنا وروش قاعدان تبر ليه كل جود حتى مويدين شيعي متى كف قرط من قادلها بوندو وين جاك بوينت وين تادقتو بان سؤال بس ويدين لها هل السؤال مركز سؤال ما يكا جواب ما يا سؤال شيء كعرنتها عباها دي سؤال شيء كعرنتها قيب ما يلقى جواب أجره ما يهدو كيد هذا أو بكر محل كان من سنتهاي ما مؤمن با أهل الجنة أهل خير مسه أهل الجنة ماها ملحن قادرها أما قال لمن أدي لها إياه أمل للفساد وفتنته بقول مريا من برياني من بدان حمراني أصب لها عود سيدكم نيكو على الدعم يقولكم عود عقلة وصب بعد أن عرف تجي كل العقلة أصب لها يعني وحاس ضدك اللي قمل قوي أحد مسلمين تكمده أو قبه روح إسلامي موجسان هيا أي دولة أي بلد أي ضل أي بقعة أي ميلو بدين الراعين يمشون ويا كاي روح هذو قال لما موجسان هيانا ميل الله مرة راعين كرو وبعد يورك سيلور راعينيا نبي محمد بن مدينة كتلي عليه الصلاة والسلام قال شو إسلام لو حكومي واي يهودي يا نصارى دي جوكتي محلو حكومي قال لهم محايا قال لهم موجسان هيا صحابة مكة كنا ولا لما قالها كتل سنتان لا فرنينه محل له حكومية إسلام روح إسلام ما كم موقته أما قال لما كم موقته لما راعين كره الدولة يا حكومة يا بلد يا بقعة منا بقى لأنه هو معلوم الحال لكن مر كان كهل إنه هي السلم والحرب دقال كأنه دولة محاربة هي إنه دولة مسالمة هي وحكوا حرنتاي maamulka jira go'aanku qaato bay ku xiran tahay marka laba sunno oo kala duwan ha isku khaldin caamadan waxay ku leeyihiin hadaba waa yahay ruuxas tulkiisa loo raacinaya ama qoomkiisa u raacinaysa ruux la yaqaan astaanti tolba lama raaciyaba waa daballo weey doqomo waa caran iyo dhaadhaan waa dhaafeen ba sawacyo weey ruuxu haduu astaan baleeyahay oo sumad leeyahay سمدي سبوا وحسين وعد الله راعي يد الله خير يا الله راعية أما قوم يبلد يد الله راعية مجهول الحال صمد لاوي نين كان أستان قال لي أنا كم موقني مد إسلامنا كم موقني حقين راعينا بلد كوتشوغ ماشو بدين راعينا إلا مالك ما هي نهد روح حكم الآن ما هنكروا روحا وين حكم الله صاروا قولي هو مسلم أما اللي يجاهدوه وقال لا يجاهدوه هذو قال لهم موجز حان لنا هاي وادفي عنده يكام مقطع هذا دورتي هذو إسلام موجزن هينا حان لنا هاي وادفي عنده هذا دورتي لكن لبضع الصمدات كيل لقوا ويا الراعية بلد يداري أغلبية يميل له بدين الراعية ولي مركو حكم كاقحد معه مركو رباريتان باكو هرية يا بحثي مركو مسائل كلا سكو ما خلدي كرو waxaan ku keenay wadaadan
maxay ku noqotay muxaariba weligeed maysan dagaalamaysa galbiya iska wadata agoon bay korsataa tolkeed baa wuxuu yahay yaa xarbi iyo dagaal nabiga kula jira waa xagga xarbiga silmiga caruurtu xooladu waa la qanimaysan ilmaha caruurta gaalka xoolihiisa waa la qanimaysan asaga lama dili karo markaan soo duulla caruurta xoolaheeda waa qaniimo haweenka xoolahoodu waa qaniimo midka xiniyaha waaweyn xoolihiisu waa qaniimo midna waa birtaa geydo oo waa ragga caruurta iyo maxastana waa birmageydaa la dili maayo laakiin xooluhu waa xalaalo waa qaniimo waxay ku bannaanaan bilkufri kufriga ay ku bannaan midna waa xaqiiqi fi xaqi الrijaali والnisaaءi الbaaliغaat iyo kufri غayri xaqiiqi ah oo caruurta iyo majaaniinta qaan gaadha iyagoo waalal oo tal ah masaa'ilka marka in sidaa loo fahmay u baahan tahay inaad ugu soo celisaan waxyaabahan waa hore nafta ka gooyey oo raadkay dib ugu celisaan ma yeeli karo toban jeer baan soo sheegay qaabka hadda kitaab baa xataa ku qoran tahay qadaaya kutub baan xataa ku qoray maqaalaad baan xataa ku qoray qowlu saahibka xataa ku qoran tahay meelayso ku qoran ma jiro masalada ah qadaaya alxarbi wasilmi in ay meesha aadayso fasaraynaa leylatan lama odhan karo cilaa ka dhaxaysa cillo kana waxaa la raaciy kan waxaa way waa nas mansuuso wey ana man adhara alislaama fahuwa fi muslim fi ayi makaani wa fi ayi baladin wa masalatu ijmaacin lam yakhtali fi ithnaani min almuslimiin ijmaaca ruuxi khilaafana bacda alcilmi bihi wa qiyaami alxujati calayh waxaan leenahay waa kaafir waaran qoray hawsha ayada ah nimankaana iyo inta lamidkaana 20 sano ku soo socota hawsha ayaa ka badan iyo 100 sano waa mucaanidiin mukaabiriin ah marka kafaro weeye min xayثu الراجح طيب هذه كله واهل البدع متهي ادون كان لك طهيرو اما مساله قضيه الحرب والسلم ان ماملك يطلس كحرين هاي سنه الرسول الله با لغا قادنيا لبا بيج كبدن waxa ku shaxay muqayyim kitabki zaad al-ma'ad ka akhriya wala kala baab كافر دار لما راعي معلوم الكفر مسلم معلوم الاسلام لما راعي دار يا بلد يا مال من لما راعي عقب dowladda hadday gaalowdo ama gaalnimo loo bato dadkoo dhan waa wada gaala diinta khawaarij weeye marka diimaha la iskuma qato diimaha muslimiinta iyo diinta khawaarij kala ilaaliya